saaxiibka runtii waa mid mar walba kula jira sidoo kalena saameyn kula yeesha isla markaana inta badan mid saameyn kugu yeesha oo aad istirada Allah leh ruuxan waa mid saameyn kugu leh. Here we go. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الذي الكيمة مالك جوجتان يسي والمدرسة ساعتين جنال كيغا بشير باردر اوفيشال كسر وانا برامج كدحلاب كتاريخ دوان كسر قادم دونا معناها وراغا يسو كلا مهمة إلى صاحبتي مدى حكمة يوراهيو أي إنوغا تغان حكمة ديهنا عالمية يسو كلا دحلاب وين أو إنوغا تغان وكو آدن إسلامركان كيغا هدليان wanaaga iyo qiimaha ay leedahay saaxiibtinimada ayaan markan idin soo gudbin doonaa balse intaan aan guda galin waxaan idin ka codsanayaa inaad subscribe gareysaan la gareysaan oo aad comment gareysaan sheekooyinkii warbixinada kala duwan ee aan halkan idin soo dhigo channelka Bashir Barder Official ku soo dhawaada barnaamijka waan markan si toos ah u guda galno xigmadu koobaad waxa ay leedahay wax walba waa macquul markii aad haysato dadka ugu fiican ee noloshaada kuwaas oo ku taageera Messi Kobeland ninka lagu magacaabo xigmadyahanka ayaa sidaas yiri wax walba waa macquul markii aad haysato dadka kugu saxan mar walba ku taageera macnaha dadka adiga noloshaada muhiimka u ah ee ku fahmaya ee og muhiimadda dabcan ay leedahay saaxiibtinimada macnaha dadka kugu haboon iyagu dadka wax garadka wax fahmaya wanaag u saaxiibka oo dad macnaha la shakhsiyad iyo sidoo kale heebad qof heebad iyo sharaf badan leh ayaa la dhigi karaa midaas xigmadda kale ee aan soo qaadanayo waxa ay leedahay saaxiibtinimadu waa mid kamid waxyaabaha ugu macaan farxadda nolosheeda Carles Isbugriyo ninka lagu magacaabo ayaa iskale waa muhiim saaxiibtinimadana qiimo iyo wanaag badan ay leedahay heer waxa la gaarsiiyaa saaxiibtinimadu ay ka darajo sareyso xitaa kuwa wada dhashay markii loo fiiriyo kuwa wada dhashay oo ku jiifkay walaalaha xitaa qaar waxa la yiraahdaa waaba ay ka darajo sareysaa sida isugu kalsoonyihiin xogaa isugu qarsanayaan isku dareemayaan isku fahmayaan wax walba farxad isku la qaadanayaan runtii lama heli karo saaxiibtinimadu waa mid kamid ah hadiyadaha ugu weyn ee dunida runtii balse waa inaad haysataa saaxiibka kugu haboon laakiin saaxiib baqdoosh dabcan aan waxba gelin waxba ogeyn aan lagu xisaabtami karin kaas la'aan dhaanta saaxiib ma waaya xigmadaha kale ee ku aadan dhanka saaxiibtinimada waa barnaamij ku soo qaadanayna ayaan sii eegaynaa xigmadan kale waxay leedahay aniga iyo adiga waxaanu isku nahay wax ka weyn saaxiibtinimada ama ka badan waanu jecel lahay si xaqiiq waanu isku dhool cadeena wax xaqiiq saaxiibtinimada qaarkood waxay ka darajo sareysaa markii loo fiiriyo maqaamka iyo darajada ku aadan saaxiibtinimada oo ay ka sareysaa sababtoo dadkaas way jecel yihiin oo jecel saaxiibtinimo waa uu ka sii gudbaya positionkaas xaqiiq ahaanna mar walba farxad iyo wax walba ayay siinayaan runtii waa xigmad kale oo cajiib oo saameynteedu gunida iyadu iska leh sidoo kale saaxiibkaaga ugu fiican waa midka kula jira mar walba garabka kugu runtii waa xigmad kale iyo oraah kale oo cajiib isla markaana saameynteeda leh qiimaha iyo sidoo kale muhiimadda ay leedahay inuu sheegayso sidoo kale saaxiibka runtii waa mid mar walba kula jira sidoo kalena saameyn kula yeesha isla markaana inta badan mid saameyn kugu yeesha oo aad istirada Allah leh ruuxan waa mid saameyn kugu leh waa mid inta badan noloshaada qayb ka waa mid inta badan
dabcan aan la heli karin oo aad dareentid mar walba kula jira si wada jira dabcan saameyn kugu leh. Montgomery ninka lagu magacaabay xigmadyahanka ayaa iska leh. sidoo kale xigmadan kale waxay leedahay saaxiibtinimadu waa in si wada jira la iskula safraa, sidoo kale la iskula juuraa oo dabcan mar walba ay dabcan isla joogaan, mar walba ay isla socdaan. laakiin maahan saaxiibka xiisoolaha ah, saaxiibka danaystaha ah, saaxiibka isagu aragtida gaaban maahan ka saaxiib. sidoo kale xigmadan waxa ay leedahay saaxiibada ku kulma si keli ah wadada, taasi waxay ka caawinaysaa in aad safarkaaga kaga mahadceliso iyada oo saaxiibada aad dabcan sida goonida ah dabcan meel cidla ah oo laga yaabo in dhibaato badan ay ka jirto keliga aad is aragtaan ee ku caawiya. dabcan safarkaaga waxa uu yahay mid qayb ka ah isla markaana aad kaga mahadcelinayso dadaalka iyo wax walba ee uu kuu sameeyo. waxaad ku luminaysaa oo aad ku bixinaysaa waqti. sidoo kale xoogaa taye iyo waqtigaaga saaxiibada wanaagsan kaliya waxa ay kaaga baahan yihiin farxad. runtii waa muhiim, saaxiibada wax walba ay isku huraan waqti, lacag si ay farxad, damaashaad iyo sidoo kale waqti qurux badan ay u wadaagaan. sidoo kale xigmadan kale la xiriirta dhanka xigmadaha iyo sidoo kale halreebyadii hore ay nooga tageen waxay leedahay saaxiibka wanaagsan waa sida xidigo aad mar walba aadan arkayn laakiin aad mar walba ogaanaysid oo aad dareemayso markay kula joogaan. runtii waa xigmad cajiiba, saameynteedana wadata. saaxiibada wanaagsan waa sida xidigo iftiiminaya dhulka mugdiga. markii loo eego xidigaha waad ogtahay qiimaha ay leeyihiin, laakiin ma arkaysid had iyo jeer oo laga yaabo in waqtiga dabcan uu idin kala diro isla markaana waqti isku haysan, laakiin mar walba ay kula joogaan waa dareemaysaa, waana fahmaysaa qiimaha iyo sidoo kale wanaagga ay leeyihiin iyo mudnaanta ay kugu fadhiyaan. gabagabada ayaan soo gaarnay barnaamijkeena. oraad haddii aan kusoo gabagabayno waxay leedahay saaxiibka wanaagsan waxa uu ka taxadaraa mid kasta kan kale. sidoo kale midka close-ka ah ee saaxiibka gaarka si ah waa uu fahmaa mid kasta kan kale, laakiin saaxiibka wanaagsan waxa uu kula jiraa mar walba. waa muhiim. xigmad kale oo saameynteeda iyadoo gaar kale, qadarinteeda iyo mudnaanteeda goonidana waa ay leedahay. sidoo kale xigmadan haddii aan ku darno waxay leedahay xaqiiqada daacadnimada ee ku tiirsan awoodda ee uu leeyahay saaxiibka wanaagsan wax loo dhigo ma jirto ayuu leeyahay. xigmadyahanka caanka ee lagu magacaabo Janzivar ayaa sidaa iska leh. waayo saaxiibayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. waxaan rabaa in aan hadda qaybo muhiim ah idiin soo qaato waqtigaan idinku dheeran. aad baad u mahadsantiin. subscribe, like, comment, sheekooyinka iyo warbixinada kala duwan ee channelkan Bashir Barder aan idiin soo dhigo. tan iyo kula dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas. nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Here we go.